golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020 oo dhan 469.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Kororka ku yimid miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020 ayaa lagu kordhiyay miisaaniyadda ciidanka qalabka sida oo hadda askari walba uu heli doono mushaar dhan $200 iyo $30 oo raashin ah, taasi oo ku timid dib u habayntii iyo tirakoobkii dawladdu ku samaysay ciidanka laguna ogaaday tirada rasmiga ee ciidankeena. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo kulanka golaha wasiirada gudoomiyay ayaa u mahad celiyay wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyadda 2020 ku soo dhamaysay waqtigii loogu talagalay iyo golaha wasiirada oo iyaguna meel mariyay miisaaniyadda. waa maalin weyn marka waxaan u mahad celinayaa horta wasaaradda maaliyadda oo soo dhameystirtay miisaaniyaddii 2020 kuna soo dhameystirtay waqtigii loogu talagalay. waxaa kaloo u mahad celinayaa golaha wasiirada iyo wasaarad walba oo kala shaqeeyay inay u suurto geliyaan wasaaradda maaliyadda inay soo dhameystirto miisaaniyadda, sidoo kale intay ka doodeen si waafiya u ansixiyay miisaaniyadda waqtiga loogu talagalay. miisaaniyadda 2020 marka ka xukuumad ahaan waxaa ku sifaysan hiigsiga iyo horumarka dalka. ugu horeyntii waxaa askari walba oo ciidamada qalabka sida aad maqasheen loo kordhiyay $70, taasoo qoondadiisa ka dhigaysa $100 oo mushaar ah, 30 raashin iyo 70 loo kordhiyay 200 iyo 30 raashinka loogu sameeyo xerooyinka ay degan. waa bilow fiican, laakiin waxay naga astaahilaan naguna leeyihiin intaas ka badan. taasoo macnaheedu yahay marka waxaan u soo jeesanay inaan ciidankeena kadib shaqadii dheereed ee dib u habeynta inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabanno. waa sanadkii ugu horeeyay, waa bilow, waana la sii wadi doonaa. miisaaniyadda dawladda oo halkudhig looga dhigay ammaane iyo adeeg ayaa ku salaysan horumarka iyo hiigsiga dawladda ee 2020 ayaa qoonda loogu daray waxbarashada, caafimaadka, dib u dhiska dalka. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa tilmaamay in miisaaniyadda 2020 ay ku sifaysan tahay hiigsiga iyo horumarka dalka marka Soomaaliya deynta laga cafiyana ay sii kordhi doonto oo balaayiin la gaarsiin doono. waxaa kaloo miisaaniyadda kaliya ay wax ku kordhisay arrimaha waxbarashada, arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dib u dhiska dalka oo kaliya. dhammaan xafiisyada dawladda oo soo codsaday in la kordhiyo kharashaadkooda oo ugu horeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha, kan madaxweynaha, kuwa guddoonka baarlamaanka, wasaarad walba, hay'adaha dawladda kulligood hal shilin looguma kordhin inta aan ka ahayn inta aan hore u soo sheegay. miisaaniyaddu sidaas daraaddeed waxay tilmaamaysaa dawlad ahmiyaddeedu ay tahay ammaano iyo adeeg. marka miisaaniyaddan waxaan ku tilmaamaynaa in hadafka 2020 dalka ay u jiheynayso wax la yiraahdo ammaano iyo adeeg. waxaan rabaa golahayga wasiirada inaan uga mahad celiyo shaqada xooggan oo ay dalkan u soo qabteen. haddii marka dadka qaar aanay aaminsanayn shaqada aad dalkan u soo qabateen, markii aad waddanka imaanayseen 168 milyan ay ahayd miisaaniyadda ugu timaadaan. celcelis marka inta waddanka aad joogteen in ka badan 70 milyan ayaa sanad walba kor u kacaysay, oo sanadka hadda ugu dambeeyay uu ahaa sanadkii xoogga ugu badan uu galay oo aad kordhiseen $120 milyan oo dollar dakhliga soo galay dawladda. waana ku mahadsantihiin. haddii marka shaqada aan wadno aan sii wadno oo Febraayo dalka deynta laga cafiyo, meesha aan ka tirinayno ma'da iyo malaayiinta, waxaan soo gaarsiinaynaa dalka in loo bedelo ba iyo billions haddii Ilaahay yiraahdo. waana mahadsantihiin. miisaaniyadda dawladda ayaa kor u kacday 274 laga soo bilaabo 2016 oo ay ahayd 168 milyan. ku talagalka miisaaniyadda 2020 ee wadarogolka u ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbinayaa golaha sharci dejinta dalka si ay u meel mariyaan kadibna madaxweynuhu saxiixo. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.